الله وبركاته. kusoo dhawaada cashir cusub insha Allah taala. maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo RBC. okay, RBC maxaa laga wadaa? macnihiisa maxaa laga soo gaabiyey RBC maxaa la yiraahdaa red blood cells. okay, red blood cells waxaa laga soo gaabiyey RBC waxaa la yiraahdaa magac kale ayaa loo yaqaana. okay, magac kale loo yaqaano waxaa la yiraahdaa RBC waxa waa erythrocyte. okay, haddii maqashid marka RBC iyo erythrocyte waa isku mid. okay, waxaa la marka ka hadlayna marka RBC marka ka hadlayna waxaa la RBC ga waa non nucleate. okay, ayaga malahan la yiraahdaa wax la yiraahdo nucleus ama cellka waxyaabaha uu leeyahay maxaa kamid ah cell biology markaan soo qaadan soo sheegnay. cellka waxa waajib ah inuu leeyahay nucleus, inuu leeyahay maxaa la yiraahdaa organelles, inuu leeyahay waxaa la yiraahdaa marka red blood cells ka malahan waxyaabahaas oo dhan. okay, waa arki doonaa insha Allah taala. okay, normal volume ka meeqa waay marka of red blood cells jirka. okay, waxaa la marka normal blood ka ama normal volume markii fiirina red blood cells waxaa la waxa waaye wuxuu gaaraa in maxaa markii la joogo female iyo male uu kala duwan yahay. okay, male waxaa la yiraahdaa inuu wuxuu ka bilaabmaa 4.5 ilaa 5.5 million ayuu gaaraa. okay, in male markii laga hadlayo, laakiin xagga dumarka markii laga hadlayo ilaa wuxuu gaaraa 4.5 million oo kale. okay, morphology-giisa haddaba maano marka of red blood cells qaabku u yaala haddaba maano waxaa la yiraahdaa si waa biconcave shape-kiisa red blood cells maxaa waaye waa biconcave oo kale. okay, biconcave waa la yiraahdaa waa kan waa biconcave. asiga waxaa la sideska dhexda uu u dhowan yahay. okay, geesahana wuxuu ka yahay inta tin ayuu ka yahay intan uu ka balaaran yahay. okay, marka macnihiisu waxa waaye muxuu faa'iido u leeyahay marka faa'iido ayaa ku jirto marka sidaan faa'iido ku jirto waxaa kamid oo kale capillaries markay ka dhex baxayaan oo kale squeeze markay sameynayaan faa'iido ayuu u yahay. okay, this biconcave kan RBC ga faa'iido ayuu u yahay cellka intersport lagu sameeyo nutrients badan inuu soo galo waxyaabo badan ayay ka saacidayaan. okay, normal structure RBC hadda fiirina qaabku u yahay RBC ga waxaa la yiraahdaa saa ognahay horta RBC waxaa ognahay waa guduud soo colorkiisu waa guduud. maxaa ka dhigaya waxaan marka RBC maxaa ka dhigaya redkan maxaa colorku u yeelay wax kale ma ahan waxa colorku u yeelay RBC da qurxinaya waxaa la yiraahdaa waa hemoglobin waxa la yiraahdaa. okay, hemoglobin ay ku dhex jirto hemoglobin gas ayaa siinayso marka colorkan ay dhigayso. okay, taas oo islaheena. okay, structure-kiisa marka fiirino waxaa la yiraahdaa asiga malahan nucleus malahan maxaa la yiraahdaa organelles malahan. okay, marka hadiisan uu nucleus lahayn organism lahayn oo cytoplasm dhex yaala organism cytoplasm dhex yaala haduusan lahayn siduu marka ku helaa mitochondria malaha. okay, mitochondria ma red blood cells ka waa in sheeg macna wax organism ku jira mitochondria waxay kamid tahay organism ku dhex jiro soo malahan. haddaba su'aasha is weydiinaysa maxaa marka sidee energy uu ku helaa marka sababtoo mitochondria sa ognahay shaqada waxa inay sameyso energy. okay, ATP sidoo ku helaa marka ATP RBC ga wax kale ma ahan wuxuu ku helaa qaab yiraahdo glycolytic process. okay, glycolytic process qaab yiraahdo ayuu ku heli doonaa waan arki doonaa insha Allah taala. okay, inta su'aal la weydiiyay marka waxaa lagu weydiiyay life span meeqo noolaan kara RBC. okay, su'aal waa meeqo ayuu noolaan karaa RBC ga lula. okay, average RBC uu noolaan karo waxaa la yiraahdaa waa 120 days. okay, intay ku qoran tahay average red blood cells uu noolaan karo waxa waa 120 maalmood. okay, 120 maalmood markuu noolaado kadib waa dhiman doonaa. okay, waxa marka inta lagu burburiyo RBC laba meel lagu burburiyo inta ugu badan waxa lagu burburiyo spleen. okay, graveyard of RBC la yiraahdaa. okay, graveyard of RBC inta waa spleen waa marka. okay, sidoo kale liver kan lagu burburiyo. okay, sidee loo burburiyaa marka RBC ga sababta wuxuu gaaro kal 120 maalmood uu gaaray waxa rabnaa inaan bixino oo iska burburino sababta waa weynaado waa duqo marka. okay, red blood cells waxa lagu sameeyaa marka waxay tagayaan macrophage ka in spleen ka kale tagayaan macrophage ka ay dhex tagayaan then macrophage ay imaanaya wuxuu sameeyaa doonaa hemoglobin waa in sheeg RBC wuxuu sameeyaa hemoglobin. okay, hemoglobin ka ay la qabto doonaa hadda ku celino RBC ama erythrocyte waa isku mid. sorry waxaan ka bilaabaynaa bone marrow RBC inta laga soo saaraa waxaa laga soo saaraa bone marrow ee laga soo saaraa. okay,
bone marrow markii laga soo saaro RBC ga waxay tagi doontaa wadduqo 120 days soo gaaray wuxuu tagi doonaa Kupffer cells kan waa macrophage okay asiga ayaa wuxuu sameyn doonaa marka phagocytosis ayuu ku sameyn doonaa walqay doonaa then waxaa la sameyn doonaa marka hemoglobin RBC muxuu ka samaysan yahay hemoglobin tii la qaban doonaa hemoglobin markii la qabto laba qayb laga kala dhigi doonaa hem iyo globulin okay waxay ka samaysan tahay hemoglobin hem iyo globulin globulinka waa la qaban doonaa amino acid loo bedeli doonaa okay globulinka waa kan waa la qaban doonaa amino acid laga dhigi doonaa dib ayaa loo isticmaali doonaa okay dib RBC kale ayaa dib loogu sameyn doonaa hema ku soo haray hema la qaban doonaa laba qayb loo kala qaadi doonaa iron iyo bilirubin lagu kala bixi doonaa okay hem maxaa loo kala bixi doonaa iron iyo bilirubin asfahano iron maxaa lagu sameyn doonaa ironka ayadana dib loo isticmaali doonaa bone marrow waa laga doonaa RBC cusub laga sameyn doonaa okay wax la qasaarnaa ma jiro laakiin hemkan jirka maxali bilirubinkan dhibaato uu leeyahay okay marka bilirubinka in jirka laga bixiyo waxa laga doonaa liverka waxa laga dhigi doonaa conjugated ayaa laga dhigi doonaa then bile-ka ayaa lagu dari doonaa okay bile-ka hadii lagu darana kadib jirka saxar ahaan loo bixi doonaa ama kaadaan okay mise faanaas qaabka waxa waa hadda markii RBC uu duqo loo burburiyo okay waa burburina in maxali gel bladder-ka ayaa laga doonaa xameytada ayaa lagu kay doonaa ama waa la bixi doonaa okay mise okay functionkiisa maxaa marka shaqadu qabto maxaa red blood cells shaqadu qabto waxa la yiraahdaa wuxuu soo qaadaa bis carbon dioxide fiiriya oxygen ayuu soo qaadaa langi ayuu soo qaadaa jirka ayuu keenaa okay jirka ayuu keenaa sidoo kale carbon dioxide ka jirka uu isticmaalayna ku qaadaa wuxuu geenaa glands ayuu geenaa waa la bixinaa qofku markuu neefsanayo oxygen uu qaadaa markuu sii neefsanayo carbon dioxide okay sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa RBC regulation of acid base balance okay inuu joogteeyo acid base balance bufferka ayuu ka qayb qaataa okay aslahana malena okay waa kaas ashirkeena halaas insha Allah taala muhiimadiisu ay